waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horena dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay. haddeerna waxaan leenahay amnigii Galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa, laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii Galmudug laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka, laga ilaaliyo argagixisada la rabaa. mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa. waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan, yacni maalanba barabagaando iyo wax kaleeto. mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay, ayada ayaan u dhiibnay. kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida, ayadaa laga rabaa. waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh, qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin. wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay, maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca, mas-uuliyiintii Galmudug, madaxii xukuumadda Galmudug aan ahay, waxa weeye Galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa. runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, Generaal Mascuud, in uu maalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego. kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiinta oo jooga mashaa'ikhda culimaa'udiinka uu mas-uul ka yahay oo ilaalinayo wixii ay u baahdaan oo maalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga maalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye wax walba, in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin. hadda kadib shabaab maadaama aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin, wax dhiba aysan u balaloobin. taasna asagaa damaanad qaaday. annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaanad qaaday waa ku kalsoonahay ayaan nidhi. wabilaahi tawfiiq.